warbixintan waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. waxaynu sidoo kale ku faaqidi doonaa go'aankii golaha ammaanka ee Midowga Afrika, mowqifka ay ka istaagi karto dawladda Soomaaliya iyo sida uu xaalku noqon karo. kuma noqon doonaa ergeyga loo soo dirayo Soomaaliya ee golaha Midowga Afrika uu calmaday. maxay tahay sababta Midowga Afrika uu shakiga uga muujiyay ciidamada Soomaaliya isla markaasina uu ugu gacan hadiyay ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika? waxaa xalay uu goor hore warmurtiyeed ka kooban 14 qodob uu ka soo baxay fadhi ay xubnaha golaha nabadda iyo ammaanka ee Midowga Afrika ay ka yeesheen xaaladda adag ee siyaasadda Soomaaliya iyo jihayn la'aanta doorashooyinka. waxay midowga si cad u muujiyeen inaanay la dhacsanayn go'aankii golaha shacabku ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne Farmaajo. waxaan walwal weyn ka qabnaa tallaabadii halka dhinac ahayd ee golaha shacabka Soomaaliya ay ku dhaqaaqeen 12 Abriil ee sanadkan ee ku saabsanaa meelmarinta qaraar uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 13 Abriil, kaasi oo meesha ka saaray heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii 2020, kaasi oo qayaxayay hanaanka loo marayo qabashada doorashooyinka Soomaaliya. ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. golaha ayaa sidoo kale waxa ay soo jeediyeen magacaabista ergey gaar ah oo ka socda Midowga Afrika, kaasi oo dhinacyada Soomaaliya ka caawiya sidii heshiis looga gaari lahaa ismarinwaaga ka taagan doorashooyinka. ergeyga waxaa loo qabtay in muddo 4 toddobaad gudahood uu golaha ugu soo gudbiyo go'aan laga gaadho qabashada doorashooyinka Soomaaliya. waxaana magacaabista loo xilsaaray madaxweynaha Midowga Afrika. hogaamiyaha Kenya Uhuru oo dhawaan la kulmay madaxweynaha golaha Midowga Afrika ayaa u xusul duubaya in ergeygu uu noqdo mid ka soo jeeda dalkiisa. Djibouti ayaa lafteedu arrinkan loolan ugu jirta. cadka lagu hirdamaya waa in mid walba uu saameyn ku yeesho doorashada iyo hogaamiyaasha iman kara. golahu waxa uu sidoo kale ka codsaday in ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada ammaanka Soomaaliya inta dib loo eegayo heshiiska ay ku joogaan Soomaaliya, taasi oo ka dhigan in golahu waqti dheeri ah uu ku dari karo muddada ay ciidamadu joogayaan Soomaaliya, isla markaana aanay isku halayn badan ku qabin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. AMISOM iyo hoggaanka ciidamada Soomaaliya ayaa heshiis kala saxeexday 18 bishan, waxaana heshiiskaasi uu dhigayaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegaan hoggaanka howlgallada ay qaadayaan AMISOM. qodobada ka soo baxay warmurtiyeedka midowga golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee Afrika. dawladda federaalka Soomaaliya waxay u ekeed mid ka sii warhaysay waxa ka soo baxaya kulanka. wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubbe oo shalay la hadlay warbaahinta hor intaan warmurtiyeedku soo bixin ayaa farta ku fiiqay dawladaha Kenya iyo Djibouti, kuwaasi oo ku eedeeyay inay wadaan olole ay ku faragelinayaan warmurtiyeedka soo baxaya. hadalkaasi ayaa muujinaya shakiga ay markii horeba dawladdu ka qabtay waxa soo baxaya iyo sida aanay ula dhicin go'aamada qaar. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo kulanka ku matalayay Soomaaliya waxa uu ka horjeediyay golaha khudbad uu ku muujinayay sida ay uga go'an tahay inuu dhaqan galo qorshaha dib u dhigista doorashada iyo muddo kordhintu. Maxamed Cabdirasaaq Abuukar ayaa golaha u sheegay in dawladdu aysan tahay wada hadallo siyaasadeed kuwaasi oo xal loogu helo arrimaha jahwareersan ee doorashada, balse marnaba aanay aqbalin faragelin siyaasadeed. waxa uu xasuusiyey xeer hoosaadka golaha ee tilmaamaya in Afrika aanay shanta isla soo gelin markay arrintu marayso siyaasadda amuuraha gudaha. golaha ammaanka Afrika ayaa sidoo kale waxa ay warmurtiyeedkooda ku xuseen baaq ay u jeediyeen hogaamiyaasha siyaasadda iyo musharaxiinta mucaaradka ah, kuwaasi oo ay ugu baaqeen inay ka waantoobaan falalka abuuri kara kala fogaansho iyo xasilooni darro. si degdega waxa ay go'aamadani taageero uga heleen musharaxiinta mucaaradka iyo xubno ka mid ah maamul goboleedyada. weli wax wara kama soo bixin dawladda Soomaaliya kadib warmurtiyeedka. xaalku hadda waxa uu muuqdaa mid la isu sanqarayareystay. teedhadii lagu soo kala tegay miyaa dib loogu laaban doonaa, mise dawladdu waa ay ka tanaasuli doontaa dib u dhigista doorashooyinka oo waxaa halkaasi ka bixi doona muddo kororsiga, mise labadaa midna ma aho waxaa jira xal kale oo u diyaarsan filla Soomaaliya, taasi oo arrintan ay kaga muquuran doonto.